haddana waxaynu u leexanaynaa dhinaca iyo Malaysia oo aan waraysi la yeelanay aqoon-yahan Cabdiraxmaan Ceemow oo loo yaqaano Safiir Ceemow. waxaanu marka ugu horeyso ka wareysan doonaa doorashooyin ka dhacay bishii May 5 wadankaasi Malaysia. waxaan weydiiyay marka waxa isweydiin mudan mar haddaan nahay dad Soomaaliyeed inay dadka Soomaaliyeed ee ku dhageysanaya isweydiiyaan Malaysia maxay tahay. marka waxa nooga warantaa bal door noocee ay siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan iyo horumar ahaan wadankan Malaysia oo ku leeyahay wadanada caalamka iyo gaar ahaanba wadanada islaamka oo dhan. hawalaal waad mahadsan tahay. marka hore waxa aan doonayaa in aan xoogaa intaan u galin jawaabtaada waxaan yara jecelahay inaan xoogaa dadweynaha u sharxo juqraafi ahaan, dad ahaan, dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan waxa ay Malaysia tahay iyo sida ay u samaysan tahay. bal aan ku bilaabno juqraafi ahaan. Malaysia waxay ku taalaa qaaradda Bari Asia waxaana kala qaybiso badda loo yaqaan Sea of China. baddaas oo kala qaybiso Peninsula Malaysia caadiga iyo Borneo Malaysia iyo Malaysia Brunei ee loo yaqaan Sabah iyo Sarawak. intaan sii gelin bal Borneo Malaysia maxalada Borneo Malaysia xilliga Sabah iyo Sarawak kuwaas oo xilliga xornimada markii ay qaateen ku soo biiray Malaysia kadibna ay samaysteen Federal Malaya. not only inay Borneo Malaysia ku soo biirtay but also waxa ku soo biiray Malaysia jasiiradda loo yaqaano Singapore ay dad ahaan iyo dhul ahaanba Malaysia isleeyihiin kana taala cirifka Malaysia taasoo xilligaasi Brunei, Singapore iyo Sabah iyo Sarawak iyo Peninsula Malaysia isku biireen kadibna ay samaysteen Federal Malaya. kadib laakiin muddo kadib dhowr sano kadib ay Singapore jibisay kadibna ay Singapore sidaasi dib loogu celiyay xornimadeeda oo ay ka go'day. inkastoo taasna ay dadka qaarkiis sheegaan inay tahay majority ahaan waxa u badan Shiinayska Singapore halka ay qolooyinkan kale tan ku yaryihiin. marka intaas kaga gudubno kadib dad ahaan Malaysia waxa loo kala saaraa oo loo kala tilmaamaa waxa loo kala tilmaamaa laba qayb inay ka kooban yihiin oo ah Bamiputra iyo non-Bamiputra. Bamiputra waxa la yiraahdaa dadka dhulka loogu yimaado sida Malayga, Oran asliga ama Ali Besting Soomaalida waxay u yaqaanaan iyo dadka kale ee aan Malayga ahayn sida Sabah iyo Sarawak laakiin dhulka loogu yimaado iyo dadka non-Bamiputra waxa la yiraahdaa dadka aan dhulka loogu imaan ama Ingiriiska xilligiisa shaqo ahaan loo keenay sida Hindido kale ama Chinese kale nolol ahaan iyo ganacsi ahaan u yimaado si ay nolol fiican ugu sameystaan. diin ahaan waxay u kala qaybsamaan diinta Islaamka ayaa official ah, meel kasta masjid ayaa ku yaalo, wax kasta oo la kasta iibsanaysa calaamada xalaasha ayaa ku dhagan. meelaha aan islaamka ahayn way yara tilmaaman yihiin. diinta officialkana waa diinta islaamka. diinta islaamka waxaa lagu tilmaamaa 60% ilaa 70% inay gaarayso halka diinta ku xigta Buddha ay tahay 12% ilaa 16%, halka diinta Kiristaankana ay tahay 7% ilaa 9%. diinta Hindidana dabcan waa 4 ilaa 5 inta u dhaxayso. inkastoo ay jiraan dad aan diiban lahayn oo 2% gaaraya. dhanka dhaqaalaha waxay ku jirtaa wadamada ugu dhaqaalaha fiican adduunka. waxaa lagu tilmaamaa inay tahay wadanka 29aad ama dabcan 30 wadan ee adduunka ugu dhaqaalaha fiican, ugu nololka fiican, ugu sareeya, ugu horeeya. dabcan laakiin mudooyinkan 5 sano u dambeysay waxaad moodaa in dhaqaalahooda sidii hore xooliga u socon aysan ku jiraan dib u dhac taasoo sabab badan loo aanay karo xagga siyaasadda ama xagga wadamadii kale adduunka oo aad u soo kabcay. kaalinta Asia waxay kaga jiraan kaalinta 7 inkastoo kaalin fiican ay kaga jiraan 5 iyo 6 kaga jiraan laakiin hadda 7 ku jiraan. sababta number 1 waxa ah China, waxa ku xigo oo China number 2 ee adduunka tahay laakiin Asia number 1 bay ka tahay. waxa ku xiga dabcan Japan, waxa ku xiga Korea Koonfureed ama South Korea, kadib waxa ku xiga Taiwan iyo Hong Kong oo labadaba ka tirsan system magac ahaan ka tirsan China laakiin system ahaan ka duwan, iyo maxaa yiraahdaa Singapore oo aan ka liidan oo kaalinta 6 ku jirto, iyo dabcan Malaysia xagga East Asia ama Asia barina waxay ku jiraan kaalinta 2 inkastoo Singapore wali ay ka horeyso oo kaalinta 1 ay ka qaadatay. dhinaca kale marka aan soo fiiriyo dhaqaale ahaan
dhaqaalahooda muxuu ku tiirsan yahay dhaqaalahooda wuxuu ku tiirsan yahay lix wax ayaa basic u ah lixdaas waxay tahay macdada tin la yiraahdo oo aad u soo saara ee ku jiraan wadanka ugu horeeya adduunka soo saara inkastoo hadda kaalinta koowaad ay gaseen macdadaas oo laga sameeyo ama gasaca daasada waxyaalaha loo isticmaalo householdiga guryaha qalabka constructionka dhismaha alaabta even baltalaamyariga baabuurka iyo wixii lamid ah loo isticmaalo macdadaas aad bay kala fiican bay kaga jiraan adduunka waxay kaloo aad u soo saaraan rubberka waxa la caagaas oo laga sameeyo dhacaanka geedaha kadibna laga sameeyo taayirada waxyaalaha caaga injirka plasticada qalabka caafimaadka loo isticmaalo on soon iyo dabcan waxay aad iyadoo dhaqaalahooda ku tirsan marka saddexaad waxda palm oil oo saliida cuntada laga sameeyo taasoo laga soo saaro geedaha inkastoo not only saliida loo isticmaalo laakiin loo isticmaalo qalabka haweenka waxyaalaha haweenka isku qurxiyaan oo kale iyo wixii lamid iyo dabcan kaalinta afraad waxa ka jira dhaqaalahooda oo very important ah manufacturing warshadaha qayb weyn oo ka qaata waxyaalaha ugu badan ee dhaqaalahooda soo kabciya kamid ah warshadaha laba qayb oo qaybsaman qayb ayagu ay leeyihiin oo ah maxaa yiraahdaa local factory ama local manufacture iyo qayb foreign investment ay cadaan ama dad ajaaniba ay leeyihiin ama Asian kale sida Japanese kale taasna waxay soo saaraan xataa gaariga loo yaqaano baabuurka loo yaqaano Protonka iyo dabcan shidaalka oo ah qaybta ugu xoogan ee dhaqaalahooda soo difaaco shidaalka waxay u sameeyeen shirkad loo sameeyo la yiraahdo privatization company oo Petronas oo la private gareeyo taasoo ka soo saarto Sabah iyo waxay kaloo ka soo saartaa Terengganu waxayna boqolkiiba 5 siisa state-ka halka inta kalena ay federaalka siiso iyo dabcan waxa kale oo muhiim ah dhaqaalahooda oo 10 sano u dambeeyay ama 15 sano u dambeysay aad xoog u soo saarla macroeconomic sida dalxiiska educationka healthiga Islamic banking systemka iyo dabcan marka waa dareemi kartaa dhaqaale ahaan inay meel fiican ku jiraan waxaana weydiinaynaa marka ugu horeyso bal inuu nooga warramo doorashooyinkii ka dhacay wadankaasi Malaysia taariikhda marka ahayd 5 May bishan aynu ku jirno haatan haddii aan su-aashaada labaad u soo laabto ay ku saabsaneed doorashooyinkii ka dhacay Malaysia waxaa dhacay bishani 5 May doorasho aad u xiiso badan doorashadaas oo ay 5 sanaba mar la qabto doorashadaasna waxay ku saleysnayd federal parliament iyo state-ka oo ah hadba qoladii ku guuleysata federal parliament inay dawladda cusub ee 5 sano soo socota ay dhisi doonto iyo ra'iisul wasaarahooda iyo state-ka oo ah hadba qolada ku guuleystay state-yada ee quraastooda u badnaata in ay state-kaas maamulayaan marka waxaa tartanka badana u dhaxeeyay laba qaybood oo kala ah xisbiga talada hayo ee AMNO oo la yiraahdo Malaysia maxaa AMNO United Malay Organization ama xisbiga Malayga u badan ee xubnimada u soo dagaalamay oo isbahaysi la sameeyay maxaa xisbiga Chinese-ka ah Malaysian Chinese Association ayaa xisbiga indida elada Malaysian Indian Congress iyo qaar fara badan waxayna sameysteen magaca PN oo ay ku olahooda ay ku galeen doorashada iyo xisbiyada mucaaradka oo ayagana sameysteen hal dalad oo la yiraahdo Pakatan oo ay ayagoo ka kooban xisbiga Anwar uu leeyahay ama islaantiisu ay madaxda ka tahay gabadhiisana ay ku xigeen ka tahay loo yaqaano BKR iyo xisbiga aadka looga cabsada ee ka taliya gobolka Kelantan ee islaamka ah ee BAS iyo xisbiga kale ee Chinese-ka ah ee laakiin mucaaradka Chinese-ka xoogoodana aad u taageeran leeyahay DIP Democratic Action Party ama loo yaqaan Rocket-ka ayaguna waxay sameysteen BR wax la Pakatan raayad oo ah xisbiga dadka People's Party qoladana waxay ku soo gashay Parliament National soo marka tartanka wuxuu dhaxay PN iyo PR soo marka waxa loo tartamayay 222 kursi oo ka kooban baarlamaanka federaalka ah iyo 500 iyo xoogaa kursi oo ka kooban stateska soo kala 13 state iyo 3 federal territory hadii aan ku fahansiyo waxay tahay state-yada qaarkood
ayaa waxa jiro deegaano ama degmooyin ama districtyo aysan dawladda aysan state u lahayn oo laga leeyahay federaalka sida Kuala Lumpur meeshaan la yiraahdo Putrajaya oo kale Labuan oo ku taala Sabah oo kale state ka tirsan laakiin shaqo kuma laha waxa maamusha marka intaas loo tartamay 13 state iyo maxaa raada iyo 13 state 3 federal territory ayaa 222 quraasta baarlamaanka oo hadba qoladii kala bar keenta 112 in ay dhisi karto dawladda ama ra'iisul wasaaraha iyo dawladiisa marka dabcan loolan adag kadib waxa aad baa la isugu soo dhawaaday xataa newspaperada iyo jaamacadaha rasiidka sameeyay iyo waxay aad u hadalhayeen in xisbiga mucaaradka uu qaadanayo sababta uu xisbigan wadanka taliyo PN-ka ama amno wuxuu ka talinay ilaa xornimada intii qaatay marka cabashooyin badan xagga wax isdhaafsiinta waxyaalo badan baa jiray laakiin somehow sidaas maysan dhicin oo xisbigii wadanka ayaa soo laabtay inkastoo laakiin uu ku soo laabtay si yar oo dhibaataysan oo tacbaanimo isteedida qaarkoodna uu lumiyay sida isteedka weyn ee Selangor waxa gacanta ku haya xisbiga Anwar isteedka weyn Penang waxa gacanta ku haya Chinese-ka DIP dabcan Kelantan waxa gacanta ku haya PAS oo weligeed gacanta ku haya jirtay waan gartay safiraan marka haatan waxa nooga warantaa sida ay u kala heleen xisbiyadii ku tartamayay doorashadaasi iyo codadka ay kala heleen iyo cidda ku guuleysatay hadda Okay jawaabta su'aashaada ha waxa ku soo baxay xisbiga wadanka xukuma ee loo yaqaan BN laakiin markii loo fiiriyo Peninsula Malaysia ama Malaysia weyn wuxuu keenay 89 kursi ayuu federaalka keenay halka ay meesha la yiraahdo qolooyinkan BR kana ay keeneen 80 macnaheedu marka 9 kursi ayaa u dhaxaysa Peninsula Malaysia oo ah Malaysia weyn halka laakiin ay ku kala baxeen oo ay wax badan ku heleen waxay tahay Sabah iyo Sarawak taasoo xisbiga dawladda uu ku badbaaday oo quraasti ku filneed inuu ra'iisul wasaare noqdo Najib dawladiisa soo dhiso uu helay waxa kale oo halkaas aan ka baran karnaa hadana Soomaali habka state-ka iyo federaalka somehow u wada shaqeeyaan iyo sida ay dadku aysan ayagoo hadana kala siyaasada ama kala aysan waxba dhibaato weyn aysan jirin marka tusaale ahaan isteedida qaar baa la 3 kursi sida isteedka Barles oo kala isteedka ugu yar 3 kursi leeyahay halka isteedka Sarawakna uu leeyahay 32 kursi waxa kale oo jira chief ministerka hadda Penang magaalada saddexaad ugu dhaqaalaha badan waa Shineys waliba gobolkiisa ma wuxuu ka yimaaday magaalada Batu Pahat oo ku dhashay laakiin wuxuu chief minister ka yahay Penang macnaheedu marka from corner to corner state corner kala ku yaala ayuu ku dhashay oo ku soo barbaaray state kala ku yaala ayuuna chief minister ka yahay macnaheedu ma aha inuu gobolka ninkan u dhashay ama dadkiisa ka soo jeedaan oo ka noqdo ma hadda waxa ku xiran tahay xisbiga kulid xisbiga laftigooda waa dareemaysaa meelaha qaarkood quraasta way isku darsanayaan kadib markay isku darsan hadda state-kan Selangor oo kale way isku wada agdhaceen maxaa raada PAS wuxuu keenay 15 BR oo xisbiga BKR oo xisbiga Anwar wuxuu keenay 14 xisbiga Shiinaha wuxuu keenay 15 laakiin way isku darsadeen kadibna xisbiga maxaa raada BKR ayaa saas chief minister ku noqday marka waa dareemaysaa in dadka ayuu kala system ay wax wadaagi karaan midda kale waxyaalaha kale oo aan ka barnay sida federaalka iyo dawladda u shaqeysa federaalka iyo dawladda ma in dawladda ay federaalka ma in state wax kasta uu qaadanayo ma qaraadkiisa 5% ama 7 inta kale federaalka iskala hatta ayagoo chief minister ka state-kooda oo doorashadii ku soo baxay haddana maxay leeyihiin level aysan dhaafi karin oo ay federaalka shaqo ku leedahay oo tilaabo aysan gooy karin marka wax badan ugu baahanaa inaan ka barano marka ala kulli xaal adiga Chinese-ki maxaa raada BN uu ku soo baxay doorashadii isteedii badan uu lumiyay qaar badan uu soo ceystay kadax oo kale uu soo ceystay kadax marka hore waxa ka tali jiray PAS laakiin hadda waxa ka taliyo
Anwar wiilkiisa Mahathir wiilkiisa oo hadda chief minister ka marka doorashadii waxay favor siisay oo ku soo baxay xisbiga wadanka inkastoo cabashooyin badan ay jiraan oo xagga doorashooyin ka soo baxay mucaaradka waan fahnay mudane Safir marka waxaan maqalnay inay jiraan cabashooyin iyo eedeymo ka imanaya dhinaca mucaaradka iyo dadka marka kula tartamayay doorashada marka maxay tahay cabashadan ay imika ururadan mucaaradka ay u soo jeedinayaan dawladda waxaa jira xoogaa cabashooyin oo ku saabsan markii doorashada soo baxday kadib qolooyinka mucaaradka way caawdeen waxay yiraahdeen cadaalad ma aha xisbiga dawladda ayaa ku shibtay waxay qabteen meelaha istiraatiijiyada iyo meelaha ayaga u gaarka waxay ku qabteen kulamo waaweyn oo boqolaal ay ka soo qayb galayaan qofood kumanaan xataa waxyaalaha ay ka cabanayaan waxa kamid ay leeyihiin number 1 transparent ma aha wixii oo ma cad because doorashada waxa maamulay hay'adda election commission dabcan waxay hoos tagtaa dawladda soo marka xilin ma aamini karno waxba mid kale waxay kale ku doodayaan qolooyinka mucaaradka ay leeyihiin waa systemku waa old soddon sano lagu shaqeynayay ka badan lama casriyeyn meelaha qaarkood maxaa raada waxay leeyihiin waxay ku doodayaan isteediyada qaarkood meel ay ku nooshahay degmo ama xaafad ay ku nooshahay 100,000 oo qof ayaa waxa baarlamaanka ka soo galaya state-ka ama kan federaalka hal qof halka xaafad ay ku nooshahay 10,000 ama 12,000 ay ku soo galayso marka waxay leeyihiin dadkii way isbedeleen dhulkii wuu batay dadkii way kordheen marka waa in wax laga bedelaa oo meelaha favor ka siinaya because xoogaa xisbiga wadanka waxa favor siinaya meelaha mostly ay maleega u badan yihiin ama ay yihiin maxaa kambuunada oo kale ayay waxay ku leeyihiin quraas fara badan oo baarlamaanka ka soo galaysa halka isteediyada waaweyn sida Selangor oo kale iyo Binaane quraasta ka soo galaysa federaalka marka cabashooyin noocaas ah jiro systemka aan horumarsanay waxa kale cabashooyin ka jirta xagga media ay leeyihiin media caadiga waxba kuma laha TV-yada iyo newspaperada waaweyn iyo waxba kuma laha mucaaradka saddex newspaper leeyihiin oo xataa aan meelaha lagu iibin laakiin waxay xoog u isticmaalaan internet marka waxay leeyihiin systemkii doorashadii waa old oo habkii loo socdo habkii hore oo meesha sida loo soo galagalayo ayaa kala badan waxay kale leeyihiin media caadiga waxba kuma leeyihiin favorka waxay siinaysaa qolada wadanka xukuma waxay kale leeyihiin election commission wixiisa ama qolada doorashada maamula waxooda ma aha transparent mid kale waxay aad ugu cabanayaan travel ban oo safarada oo laga joojiyay tusaale ahaan xilliyada doorashada ay socdaan iyo kadib gabadha Anwar oo gudoomiye ku xigeenka ururka oo iyadana baarlamaanka federaalka baarlamaanka ku kale Noor Al-Aiza gabadha da'yar ayaa waxay doontay inay aad sabax ay campaign ka sameeyso laakiin immigration ka sabax soo celiyo because sharciga jiro oo markay isku soo biirayeen sabax iyo bananzilada ku heshiiyay in wixii immigration ama wixii socdaal ah xaq u leeyahay marka xaq isla xisbiga ka taliya marka wuxuu isticmaalay sharcigaas gabadhii dib baa lagu soo celiyay bananzila Malaysia iyada iyo kooxdii doorashada xagga kala qayb galeed oo campaign-ka la galeed marka waxay leeyihiin waxa jiro travel ban waxa jiro media maxarada control waxa jiro maxarada all system waxa jiro marka waxyaalaha laakiin saasita haddana ma aha wax muuqda oo dagaal weyn oo jidka la ka hortaagay ama ay just waa cabasho iyo meelaha istiraatiijiyada ay ka taliyaan xisbiga waxay ku sameeyeen wax la yiraahdo dooda iyo waxay ku sameeyeen cabashooyin iyo xarada darmad madoob ay xiranayaan maxkamadda dacwada marka waxay xisbiyada mucaaradka leeyihiin waxa jira some kind of laakiin waa laga yaabaa in markii Najiib ay jirtaa inuu isbedel sameeyo oo ka faa'iideysto si uusan mar dambe oo soo xaaladan oo kale u galin iyo inuu sidaan ku sii wado laakiin waxa rajaynayaa inuu isbedel jiro because baarlamaanka bay hadda isku dawadayeen 89 ilaa 133 waxba badan uma dhaxeeyaan state almost ilaa 4 state way maamulaan marka I think waxaan rajaynayaa inay hagaagto laakiin annaga hadii aan Soomaalina wax badan baan ka baranay oo dadka sida u nool yihiin sida state-yada iyo federaalka u shaqeyn karaan
iyo sida limitationka iyo nooga warantaa bal door noocee ay siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo horumar ahaan wadankan Malaysia oo ku leeyahay wadanada caalamka iyo gaar ahaanba wadanada islaamka oo dhan walaal su-aasha ku saabsan halkee ayay Malaysia ka joogtaa adduunka okay Malaysia meel fiican bay adduunka joogtaa dhaqaale ahaan waan soo sheegay ilaa 30 wadan adduunka dhaqaale fiican ay ku jirto siyaasad ahaan waxay ku jirtaa wadamada oo ay sida islaamka waliba kuwa ugu xoogan aad miisaanka leh ku jirta ma aha wadan shidaal badan oo sidii carabaha kale حتى كما ترسنا أوبك ودمدا إجدال قصص سارة كما ترسنا معها بقرطوية فريسة وبقرطوية أنشغل كلهم وفدرال البرلمان وبرلمان ذاتك صادر تنبقر كانوا حضر تنبقر ركلا وز بدل عشان تسأودنا بلها أو جس وحقون معاملة كونستيوشن كوكلية مركا مال في عنا يدون كجدران طبعا حقنا ودل الإنسان وكوي صومالي تجي 1993 هذا لفتي قد مال بدنا جوجان سيدا لبنان حد كسر حزب الله يوحي جوجان إسرائيل مدة الميليشيا وحي aad u taageertaa qadiyada Falastiin wadan ahaan inta lagu aqoonsanyahay safaarada ku leeyihiin aad baa loo taakuleeyaa xataa ra'iisul wasaare Najiib sanadkan bilowgiisii wuu tagay Gaza madaxda farakutiriska ee tagta Gaza ku jira asigoo inta Egypt tagay halkaas ka galay Ismaaciil Haniye la kulmay halka salaan sharaf kaga soo qaatay Gaza dadka soo caawiyay marka waa dareemi kartaa xataa waxyaalaha xiisaha leh waxay tahay wadamo badan oo carab ah jirta Israa'iil xiriir lama aqoonsana waxayna xataa baasaboorkooda ku qoreen inaan lagu safri karin oo lagu teeyo Israa'iil oo waxa ku qoran wadamada waa lagu gali karaa intaan keen Israa'iil taas macnaheedu waxay tahay marka in wali ay wadamada farakutiriska Israa'iil ka soo horjeeda si public ka yiraahdo hal maxkamadeeyo Falastiiniinta si public u taageero inay ku jiraan marka qadiyada islaamka qadiyada Falastiiniinta qadiyada wadamada way ku jiraan mid ka dhaqaale ahaan markii la fiiriyo xataa hadii wadan koowaad ahaan labaad yahay Turkiga oo kaliya I think ay umaleynaa inay isku dhow yihiin dhaqaale ahaan inkastoo Turkiga xataa markii loo fiiriyo dhaqaale ahaan GDP per capita laga sareeyo oo ay ka sareeyaan Malaysiyaanka laakiin meelo badan oo Turkiga ka sareeyo balan Turkiga wadan weyn oo xadaari weey laakiin somehow way ka dhow yihiin marka waa dareemi kartaa xagga siyaasadda adduunka xagga dhaqaalaha xagga dhinac kastaba meel fiican ay kaga jiraan arrintan Falastiiniyiinta iyo Israa'iilkana aad xataa ay ugu culus yihiin marka loo fiiriyo carabta kale ومعتسيحي كاسنا وحا سفير عيمو وعنده كوريسنين عرمها كصاب صندوق رسوينكي كان عاي ودن كاسي ماليشيا وكنا الودن كاسي ماليشيا قارهان مقالة كوالا لامبوري عاصمة ودن كاس هذا بعض ما حسنت مدار سفير marka waa arin muhiim waana mahadsantahay waraysigaada wax badan waa dadka halkan jooga aan ka warhayn iyo dadka dabcan adduunka jooga waan ka fahansiin Malaysia waana mahadsantiin. Assalaamu calaykum.